waxay soo korisay ani hooyo hilibka qasha waxay soo koriyay abo waardiyaa macnaha dad matalaya duruufta dadka Soomaalida hadda ku sugan yihiin aniga waxaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Qardho dugsigayga sare Sheekh Usmaan buu ahaa dugsigayga hoose dhexe waa Kubo waqtiga markaan Soomaaliya joogay waxay ahayd wadan calaamad ka jirto waan xasuustaa anigoo lix jir ah qof la dilay baan soo dul istaagay sanadkii 2011kii nasiib wanaag baan markaan waxaan aaday Ethiopia waxaan soo qaatay civil engineering baan bartay shaqada bilowdo maxay ahayd shaqadeeda waxay la xiriiray iskuulada qaybta waxbarashada caafimaadka xooga saaran jiray isbitaalka ugu weyn hadda TB da Puntland design-kiisa anaa sameeyey garowga waxaan ka dhisay iskuulo meelaha remote areas tuulooyin fara badan oo ku marka hal sano ka shaqeynayay intaan ka tegin Soomaaliya ku aadin kadibna markaan ka tegay waxaan aaday South Korea markaan tegay meesha marka arinta waxyaabaha ugu xiisaha badan waxaa qof marka Soomaali yahay marka waxay ku maleynayaan burcad ku diideen wow waxaa laga qaybtay inay ku maleeyaan burcad taa Koreanka barashadiisa waxay iga caawisay inaan si successfully u dhamaysto masterkii Koreanka magaranaysa marka Mareykanka connection baa ku lahaa saacada liman marka sanadkeed marka laga aqbalay programka dhimaada Mareykanka 2021 aqoontaan helay waan xasuustaa sanadkii ugu horreeyay PhD sanadayga adkay noloshayda ima soo marin وأنا أنا research كي dissertation كان قري وحافظ كي environmental protection agents EPA صح صح project وين وهل من الدور مكان سقيم كها صح وحنا هاي engineer لينك transportation كا متجرا of كقاطي رول وين يعني محل يجري ما أنت مش هتكاتي أديبان تبغى غير كقاطي ما دي كرقف حتى هذا community غير حاول ذاك ما كنت برتاح مريكا of كسواني وراح برتاح حافظة سواء دلتو هجورة سبب كاسو عدان كل إحدى أرتو واحد أفضل personalization ولا صح أنا قال لك personal value دي value كان ليه هاي يعني أنت اسمه قبنايا واحد أمسنا قيمة يجيبوا قيمة ذا والشدة الصومالية واللي بقوة وتمرتيا فرنسا صح So marka cabdirashiid marka soo dhow ku soo dhawow the Doctors and Poets waxaan anaga wareysanaa Soomaalida fikirto dhaqaatiirta iyo injineerada iyo maxaa la yiraahdaa dadka gabiyo iyo dadka maskaxdooda ka shaqeysiyo dhan dadka maskaxdooda shiilan waxa ugu badan nimankan PhD qaato aday ka mid tahay marka cabdirashiid meeshaad maanta joogtid waxaa wax yar inaad nooga taabatid annaguna ku sii fogaanina bal inaad horta sawir naga siisid koritaankaaga hore iyo cabdirashiid meeshaad nolosha ka soo bilowday horta aniga hadda waxaan هاي وأنا وشقي إنجنير عالم وشقية وحنا هاي وحنا اللي هذا أفكار قلاد Advanced Mobility Engineer وحنا وشقية كمبني اللي هذا HNTB وكمبني كمبني ذا هو وين وحاجة قاعدين كعم transportation كمان كان مريكان كا شقة هذا السنة كي هو بعيد مانية مركزها لقته وحنا هاي وحنا له incoming assistant professor of civil engineering تا وحوي وقت جيدة iyo meeshada gaarka baan kaga sheekaysan doonaa shaqada ugu badan aan qabto fadhigii waxa way Columbus Ohio baan idin keenay maanta waxay ugu wareysanaysaan waa studio in Minneapolis oo markii labaad caasimada Soomaalida Mareykanka Minneapolis yes waa markii labaad aan booqanay Minneapolis inta Mareykan joogay oo ku faraxsanahay inaan Minneapolis imi inaan isaragnay marka fadhigii waa Ohio maadaama ay tahay inkastoo aan Ohio tahay laakiin shaqadeedu kuma qabno Ohio kaliya waxaan u shaqeeyaa consultant baan marka inta badan waxaan u shaqeeyaa waa US Department of Transportation departmentiga gaadiidka ee waddanka Mareykanka waxay leeyihiin state DOTs waxa la dhaho state kasta waxay leedahay wasaaradeeda gaadiidka u gaara shaqadeeda inta badan waxay xoogga saaraysaa laba state waddanka Mareykanka ku yaala waa stateka Ohio oo aan meesha ku noolahay iyo stateka Indiana shaqadeeda inta badan waxay la xiriirtaa labo area ama laba application labadaas waxa way qaybta koowaad waa baabuurta loo yaqaan electric vehicleska ama baabuurta korontada ku shaqeysa tan labaadna waxay la xiriirtaa waxa la dhaho connected vehicleska ama baabuurta communication ka sameyn kara ama xiriir ka sameyn kara soo raana kale waxa laga yaabaa dad gaari wada sidoo ku soo dhaco alert ama message ama fariintaas ku sheegaysa in wadada xiran tahay intay ku jirto meesha xiran waxa ka socda inuu yahay dhisme speedka la rabo inaad ku socotid ma bidixda ma midigta fariinta noocaas inaad receive garaysid waxa waaye waa connected vehicles baa loo yaqaan baabuurta
marka labadayda shaqo intaas xooga saaran stateka Ohio shaqada ka qabta waa baabuurtaas xiriirka communication samaysa ama connected vehicleska stateka Indiana shaqada ka qabta waa baabuurta korontada ku shaqeysa ama electric vehicleska teknolojiyadana waa teknolojiyada maantay tartanka u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha dhexda u taala waxa waaye inta badan waxa ugu muhiimsan teknolojiyada saddex wax chips technology ay dhahaan oo wixii computerina processing kan waxyaabahaas oo dhan taqaanaa in uu ku shaqeeyo computerkaaga telefoonka waxaas oo ku shaqeeya oo computerka loo isticmaalo waxaa ku xigta battery technology teknolojiyada batteryga iyo artificial intelligence ama garaadka macmalka waxay u yaqaanaan aniga laakiin normally human intelligence-ga of course u jinjana dhankeeda marka waxay u dhex taallaa shaqadaasi marka competitionka caalamiga ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha waa shaqo muhiim ah artificial intelligence waxaa loo Soomaaliyay garaadka macmalka miya garaadka macmalka that's the first for me yes caadi ma era bixin fiican wey marka horeba aniga laftigeyga waxaan hadda coin sameeyey maaha waxaan ku arkay qoraalada Soomaaliga dadka isticmaalay garaadka macmalka marka macna ay sameeyay wax macmala artificial iyo garaadkii aqliga sax marka Soomaalida si cajiib ah bixinta sameeyeen marka shaqadeedu inta badan xaggaas ay dhextaal u tahay waxyaabaha teknolojiyada critical waxaana ka imaanaysaa Mareykanku wuxuu sameeyaa wuxuu daabacaa waxa loo yaqaano critical and emerging technologies list bay leeyihiin so waxaa la soo saara dadana loo xilsaaray baa jirta waxaa la soo ururiyaa list dheer oo ku saabsan teknolojiyada ay tahay in waxa weeye Mareykanku xooga saara sababta waxaa la ogaaday uu maalgashto taariikh ahaan garanaysa marka la eego dagaalkii labaad adduunka dagaalkii qaboobaa qarnigan hadda 2020 ku jirno mar walba waxa waaye cidda teknolojiyada master garaysa ama teknolojiyada gacanta ku haysa waa super power marka si Mareykanka oo u maintain gareeyo positionkiisa super power status wuxuu u baahan yahay in teknolojiyada la dominate gareeyo marka waxa weeye liiskaas baa la identify gareeya liiskaas marka waxa kamid ah waxyaabo ku jira waxa kamid ah energy dominance baa hadda la isticmaalaa dawladda hadda joogta laakiin haddii si kale loo dhigo waxa waaye energy independence and energy security marka waa waxyaabo la xiriira battery technology inaadan cidna u daba fariisanin ama aadan dhaqaalahaaga unan ku tiirsanaanin dad kale wax soo saarkooda adiga waxaad u baahan tahay critical ku ah waddan gudihiisa iyo dadkaaga ay soo saaraan waxaa tusaale fiican kuu noqonaya hadda arrinta ka dhacday dagaalka hadda bariga dhexe oo kale shidaalka adiga ugu qaliyoobay si fiican wadamada aad ku sameeyay Soomaaliya ka mid ah Soomaaliya 90% saliidda way soo dejisataa 70% cuntada way la timaadaa marka haddii dagaal uu dhaco kale ama blockade lagu saaro waa inaad isku filnaan ka dhaca oo aadan u noqon vulnerable ama aadan u nuglaan ma garanaysaa qalaasaha siyaasadeed iyo dagaalada iyo colaadaha marka Mareykanku wuxuu rabaa inuu gaaro independent energy security and independence aniga teamka la shaqeeyo runtii waxa la yiraahdaa strategic technologies and energy security baa la dhahaa marka waxa waaye waa sugnaanshaha tamarta sax sugnaanshaha tamarta energy security iyo waxaan loo yaqaano strategic technologiyada istaraatiijiga arrintaana dee arrin uu Mareykanka markay habla noqoto kusoo baraarugameen oo wax 10 sano 20 sano 30 sano mustaqbalka la sii qorsheeyo la sii maalgashado incentiveska la sii dhigo meesha si dadka ay waxaan u soo galaan ilaa hadda adiga cidna markaad waxaan baranayso waxaan falaya tabareed ku yimid kuma dhihin baashan istaraatiijiyad bay noo tahay kaala qoro laakiin incentiveski iyo structureki yay dhigeen si dadka adoo kale oo arrimahan ku fiican adooga soo qayb noqdo soo ma waa runta waxaa jira incentive baa jira marka teknolojiyada waxaana keenaya wax la yidhaahdo frontier now technology AI uu kamid marka la sameeyay meelaha waa area ugu badan oo lacagta lagu bixiyo maadaama lacag lagu bixiyo jaamacadaha lacagta ugu badan dawladda federaalka qaataan marka dawladdu waa sheegtay incentive structure baa jira waa la incentivize gareeyay in xoogga la saaro teknolojiyada marka ardayda PhD da qaadanaysa waddanka Mareykanka ay sheegeen kambaniyada laftigooda xoogga ay saarayaan waxaa rabaa in xoogga la saaro si aan teknolojiyada looga hormarin Mareykanka oo Shiinaha looga hormarin inkastoo competitionka hadda uu adag yahay marka arrinta challenge jirana waxa inta badan intii dadka intaan ogeyn marka la eego Soviet Union waqtigu jira dagaalka qabo ama Sovietski iyo hadda China isku mid ma aha macnaha tartan isku mid ma jirto Mareykanku dhaqaale ahaan Sovietka wuu liitay marka loo eego China economic master ay maanta leeyihiin marka Mareykanku wuxuu wajahayaa markii ugu horeysay challenge weyn
kaga wajahaya Shiinaha ma aha military ahaan xataa Soviet military ahaan waxay ahaayeen parity baa jirtay oo isku dhawaayeen laakiin dhaqaale ahaan Mareykanku wuxuu marka xataa 50% miya mise 80% ma uu statistics dhaqaale adduunka haysteen laakiin maanta ma hasaas dhaqaale ahaanna waxa weeye waa very strong Shiinaha technology ahaanna waa technological powerhouse marka waa challenge aad u adag marka waa very intense competition hore u dhicin marka dadka waa fiican inaan contextigaana siino oo aan Mareykan ku jirin dagaalka qabowga mid lamid ma aha dagaalka qabowga waa mid ka xoog badan kii technology dhaqaale ahaan iyo military ahaan intaba parity jiro near peer waxay dhahan hadda cidii AI-ga ku xoog badaso iyo adduunka 100 sano soo socota hogaamin doonto marka China iyo Mareykanka kolba kii wuxuu isku dayayaa inuu noqdo kan ugu horumaro waa inuu ku horumaro oo kan kale hadda waxa la yiraahdaa Shiinaha xagga AI-ga technology laftigeeda uu ka dambeeya Mareykanka hogaamiya wax kale ma aha waa chip design كمبيوتر سنة أو أنت بريك كويا computing power computing power computational power هذا بقوله مركز هذا عيكين إذا مركز شيء راح أنا هو مقدم إياه حتى لفت كذا ساسو يتهاي لح بلاد مياه مقدم إياه على بيدا ساوف معها وبدأ أفق سامع مركز مقدم إياه لكن وقت قدم إياه مثلا time horizon كمان كلا وقت دير معه مركز واترسن عليك أنا ما أقصد نقطنا أنت على المحل يجري أنا هو سيجرين ninkaaga maanta teknolojiyadda adduunku isku haysto cilmiga inta la ka gaaray ee wax ku bartay maxaa la dhihi jiray wasaaradaha Mareykanka advice gareynaya tahay laakiin meesha kama bilaabay nolosha wada dheer oo very unique ah oo dadka oo soo maray aan wali hore u arag baad soo martay marka waxa la waxay dib noo celisid oo bal noloshaada hore meeshaad ku soo kortay waxbarashadii asaasiga ah meeshaad ka soo bilowday iyo waxa ay ka bartay inay bal ama kugu saaciday ama ku fududeysay inaad maanta meesha aad joogtay aad gaartay oo xogaan wada taagtay waa su'aal muhiim ah waa runta dadku waxa laga yaabaa markay arkaan waxyaabahan ka hadlayna hadda iyo meeshan joogo in la isku xagee ka yimaaday horta aniga waxaan ahay dadka Soomaaliya ku dhashay burburka ku koray dugsiga hoose dhexe ku qaatay wadan burburay oo colaade ka jiraaniin dugsiga sare ku qaatay wadan burburay oo colaade ka jirto oo Soomaaliya wiilka qofka hadii dhigeysanaya ama jooga mataqaana raasa casayr ama raas Kamboni ama Gaarisa ama mataqaana Jigjiga ama mataqaana Djibouti ama meel kasta qof wiil Soomaaliyeed joogo waa riyo u gaari karo mana haruntii waxa weeye wax mataqaana adag ma qof walba sameyn kara aniga waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Qardho magaalo weyn maaha waqtigii dawladda Soomaaliya oo kala gobol meyn ahayn laakiin waa magaalo cajiib qurux badan waa meesha dadkeedu ay dhinac istaageen maanta hadii dadka Qardho jooga aan dhinac taagnayn iyo macallimiinta iyo bulshada saaxiibada walaalaha ehelka ma joogin meesha maanta joogo horta magaaladaas aan ka imaaday dugsiga sare Sheekh Usmaan buu ahaa dugsiga hoose dhexe waa Kubo waxa waaye halkaas ka soo baxay dugsiga sare waqtiga markaan Soomaaliya joogay waxay ahayd wadan calaamad ka jirto waan xasuustaa anigoo lix jir ah qof la dilay baan soo dul istaagay markii guuraysa nolosheeda ilmo yar baan lix jir miyaha ama 7 jir baan qof la dilay meherad la dhigay horteed baanano ilmo yar ah marka waa garanaysaa traumada iyo burburka iyo colaadda aan kasoo kornay waxa waaye nolol noocaas ahayd waxay soo korisay ani hooyo hilibka qasha waxay soo koriyay abo waardiya macnaha dad matalaya duruufta dadka Soomaaliyeed hadda ku sugan yihiin 90% baan waxaan ka imid environment noocaas horta ani waxa weeye taariikh ahaan meeshaasaan ka imaaday sanadkii 2011 nasiib wanaag baan markaan ka gudbay imtixaanka labitanaada shahaadiga ah baan waxaan aaday Ethiopia scholarship iyo ay siinaysay ardada marka region ahaan gobolkan jooga anigoo Puntland ahaa baan ka tegey marka waxaan aaday Ethiopia waxaan kusoo qaatay civil engineering baan bartay 4 sano oo rasul jaamacad 5 sano bay ku qaatay okay waxay rakaa xakar mashaas waxaa la yiraahdaa qofka wuxuu gaaraa asfaa uu qofka uu sawran karo ama uu maxaa la yiraahdaa maskaxdiisa ka raadin karo meel heblaad gaari karta ama waxaad higsan kartaa markaad Qardho joogtay oo high school ka baranaysay oo maxaa la yiraahdaa Mareykanka waa arkaa carruurta career day baa loo diyaariyaa qofku wuxuu baran karaa hadhow maxaad noqonaysaa wala mid pilot buu leeyahay mid engineer buu leeyahay waxaa laga yaabaa adeeradooda ama saaxiibadooda ama deriskooda wax ay bartaan ama qof uu dhaqtar yahay oo kale inay noqdaan waxay dhahaan role models dadka leeyahay oo way sii sawirtaan ayagoo yar in meeshay rabaan ay gaaraan si ay hubkay u baahnaayeen iyo resource u baahnaayeen iyo wixii hore ugu sii qaataan sahidaas u aruursadaan
dadyo badan oo annaga carrada waddanka ka nimid ah waxaa laga yaabaa inaad dadka badan ay meel mugdi dhex socotidood ayna kuu sawirnayn meeshaad u socotido isku leedahay on midaan hadda aad maanta taagan tahay bal dhammee waxa ku xigaad arki doontaaye marka waxaan rabaa inaad bal adiga wax ma kuu sawirnaayeen marka aad joogto high schoolkooda Qardho joogto meesha ilaa iyo meeshaad rabtay inaad aadid mise safarkaaga wuxuu u badnaa safar on fursadaha iyo dadaalkaaga isku tagay wixii ay next step unlock kaaga dhigeen ay ku horseedeen basically waa su-aal fiican waa runta haddii waxaa laga yaabaa hadda waddankan aynu joogno waxaa la isku qiimeeya okay qofka hooyadii iyo aabihii meeshii ka joogaan ama socio-economic statuska ay yihiin baa determine garaya meeshu aadaya hadduu aabaha professor yahay hadduu dhakhtar yahay hadduu engineer yahay hadduu company CEO yahay waxaa laga yaabaa halkaas in motivation ka yimaado waddada aad raacdid laakiin waa runta markaad joogtid anaga context environment ee ku koray runtii way adkeyd inaad heshid qof role model ama waddada aad martay maraha laakiin markaan yaraa waxaan samayn jiray waxaan dhegeysan jiray idaacadaha waan xasuustaa aljazeera markaa la furay baan dhegeysan jiray tviyada idaacadaha la socon jiray markaasa waxaan ogaan jiray inay jiraan dad lagu yeerayo dad la wareysanayo hebel waa dhakhtar hebel waa professor hebel ma garanaysaa waa analyst waxaasuu ka hadlaya marka ilmo yaraan oo arki jiray marka dadkaas horumar bay gaareen taytalay gaareen waxbay barteen marka waan xasuustaa aniga oo jooga dugsiga hoose markaan ku jiray anoo ilmo yaraa yaa macallin noo dhigi jira carabiga yaa wuxuu igu yiri habeen ciyaar baa orod baa dhacday ciyaartan orodka marathonka marka nin waxaa jiray xayla la dhaho oo ordaya oo Ethiopian ninkaas waa marka orodka ku guuleystay markaasuu noo yimaado wuxuu dhahay may maqlaysaan wuxuu dhahay ninkaas wuxuu faqriga kaga cararay cagihiisa ninka wuxuu faqriga kaga cararay cagihiisa marka idinkana waxaa faqri kaga carar ka dhaqalinkiina marka ninkan dadaalino adiga joyska iskale marka anigana markaan yaraa mar walba motivation runtii waxa waa meeshaan kuleeyahay qofku wuxuu waxa waaye meeshu ka yimaado wey Qardho markaan joogay waxay isoo xasuusiso arrintaas aniga middle schoolka waxaan ka dhigtay iskuul ku yaalo number 4 Muqdisho derbiga waxaa ku qornaan jirtay ninkaan madaxa ka dhididin dhabarku ka dhidida oo micnaha haddii aadan maskaxdaada iyo qalinkaaga ku shaqaysanin oodan maskaxdaada maalin hadhow waxaad ku qasbanaan doontaa inaad dhabarkaaga meeshood xamaali noqoto muruqaaga wuxuu ku saari karo uu saaro marka parallelkaas baa very interesting ninka marka wuxuu ku yiri lugiisu uga cararay faqrinimada adinkana waa inaad maskaxdiina iyo qalinkiina uga carartaan motivation bay ku wahayd marka adiga aad xasuusatay kula wax badan kula joogay waka mar walba waxay ahayd xasuus magaranaysaa muddo kale macalinka markaan safka subaxii waxaa la galaa daabuurka saf baa la galaa ardayda markaan nahay marka wuxuu dhahaa macallimiinta waxay nahay waxaad beri hogaamiyihii beri waxaa tahay dadkii mataqaanaa waddanka macnaha horumarka gaarsiin lahaa waddanka burbur dadkii bedeli lahaa idinka waaye marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku motivation ku siinayaan laakiin aniga shakhsi ahaan waxyaabaha i siiyey inaan ka fikiro heerkan inaan gaaro maantay waxay ahayd markaan arko anoo ilmo yara oo tv-ga daawada idaacadaha dhegeysta oo okay dad mataqaanaa suud xiran tay xiran la sharfaayo hadlaya taytalla leh oo waxaan dhahay adigana nimankaas kale waa noqon kartaa marka horta taas kasoo bilowday mataqaanaa fiishan baa jiray waxaana community-ga markaan kulay wax walbana community-ga ma soo haraan Qardho markaan iskuulka joogay inta badan dhibco fiican baan keeni jiray marka waan xasuustaa markaan dhibco fiican keeno number 1 galo probably waxaa laga yaabaa in hadiyada lii keeni jiray motivation bay siin jirtay so sidii aan sanadka dambe haddana number 1 u sii joogo haddana number 1 hadiyada ku siinay familkana way siin jireen iskuulkana wuu siinayay ma garanaysa marka waxay ahayd competitiono noocaas marka waan hayay hadda shahaadooyinka waaga aan qaatay maalin weyn aan tiktok soo dhigay shahaadadii xisaab tartan aan galnay so xisaab iskuullada Qardho la isu keenay marka waxaa leeyahay math baa lagu tartamaya so marka I was the best marka motivation noocaas ah marka walba waxaan ka haystay fikrada aan meeshaan u socdo meeshaan aadayo marka waan isdiyaarinay so mar walba ilaahay wuxuu kalifay mataqaana fursadii inuu ila kulmiyo so high school baan dhameeyey okay marka Ethiopia fursadda keentay waxaan okay dadka ugu sareeyay imtixaamada waxaan siinay shahaado college ka dhigtaan Ethiopia sidii aan ku baxay Ethiopia ku soo dhigtay Ethiopia haddana markaan joogay arrin muhiim ah jirta dadka inay fahmaan tahay aniga basically I'm not privileged laakiin privilege waa inaan samaystaanay okay ma fahantay privilege soo ma dhaha probably waa su'aal fiican sumcaday noqonaysaa sumcad waa adiga qof dabaqad
saro xagga dhaqaalaha ku koray oo access u leh waxyaabo badan in adiga marka access u baxdo English baa ku laabtay okay laakiin basically adiga maadan ku korin environment ama reer ama system ku ogolaanayay inaad waxyaabo badan oo aad damacsan marka aad access u heshid ama aad ay ku furmaan marka fursadii in adiga abuurtay noqoto okay marka Ethiopia markaan joogay maxay ugu jiray si aad master u heshid waa inaad dadaalaa marka college ku jirto sa graduate school aad scholarship kale u helo oo Ethiopia inta marka waxaan ku khasbanaa inaan si fiican u dadaalo waxbarashada dhibcaha ugu sareeya keeno grade fiican kaga baxo GPA u yaqaanaan GPA fiican kaga baxo Ethiopia markaan ka baxana si markaas igu shahaado inaan helo deeq waxbarasho master marka master sameynayna si aan PhD u helo waxaan rabay inaan dadaalo si marka wax walba inaan sameystay ku khasbanaa so Ethiopia si aan u sii joogo shahaadada u dhamaysto inaan dadaalo dhibcaha fiican ku qalin Soomaaliya ku laabto shaqeeyo kadibna shaqo weyn yar kaliya shaqeynay inta badan iskuul baan ku jiray noloshayda kadibna markaan ka tagay waxaan aaday South Korea ka bixin wadamo badan isku soo martay oo qaraad ka tagtay high school baad ka dhamaysay Ethiopia tagtay oo ka samaysay undergrad-kaaga ama bachelor-kaaga masterkii South Korea dhaqanka barnaamij midba transition-ka siduu ahaa inaad wax ka taabatay marka Ethiopia markaa tagaysay adoo cun yar oo wiil yar oo high school soo dhameeyay oo wadan aad kulay luqadiisa aan garaneyn dhaqankooda aan garaneyn laga yaabo Soomaalida Ethiopia inay cadowda dad xun ka haystaan sidoo ahaa iyo waxa la kulantay iyo wixii marka ay maskaxda ka guuxayay iyo xaqiiqdii inay bal iswaafaqeen iyo inay aad isku diidanayeen inaad wax yaraadana ka taagto waa su'aal fiican horta sideed ma taqaanaa waxa la yiraahdaa qofka nacayb kuma dhasho oo wax la sameeyo waxa iska jira waxyaabo ma taqaanaa misconceptions waxa jira waxyaabo la abuuray dadku iska abuureen ama wax saa sheegtay lagu soo ababiyay oo aad run u qaadatid waxay ahayd arrinta runtii waxaan aniga Soomaali markaynu nahay inaga waxaan nahay hal qoomiyad hal luqadan ku hadalna hal diin aan leenahay hal afaan leenahay dad isku mid ah nahay Ethiopia markaan tagay waxaan helay exposure ka duwan kii hore wadan intaas sideetan qoomiyad degan tahay dad walba gaalay islaam ay degan yihiin diimo kala duwan la haysto dadka ixtiraamkooda nool yihiin system nidaam dawli haystaan runtii waxa su'aalaha isweydiiyay markaan Ethiopia tagay dadka qoomiyada inta leeg nidaamku u shaqeynay systemku u shaqeynay dawladii ay joogto meel walba jaamacada laga furay waxbarashada ay free looga dhigay anaga wadankan ka imaado waxaan dadka waa isku wada mid dadkan saas la isugu hayo systemka dawladnimada isugu hayo waa arrin cajiib ah ma arag inta jooga ciido calaadisa ma arag ciido dhibta diintan ay siciid ugu discriminate garaysaa amigo Soomaaliya dad wada wanaagsan si fiican isu dhaweeyay mataqaana dhaqankii aan bartay marka waxaan ogaaday dadka in la wada noolaan karo qiimaha kala duwan qoomiyadaha kala duwan dadka inay kala noolaan karaan nolol fiican waxa way ammaan la haysan karo in dawlad la haysan karo iyadoo la kala duwan yahay iyadoo la kala aragti duwan yahay marka cashar bay leeyahay marka waxaan ka soo baxay meel dadku isku wada mid yahay haddana qof walba qof haysto waxaan tagay meel dadku kala duwan yahay laakiin nidaam uu ka jiro ma fahmaysaa dadkii dantii wadanka ay u midaysan yihiin marka cashar fiican bay leeyahay ma garad marka marka systemku wuu shaqeynayay laakiin dacdaadis iyo nin melisana wuxuu ahaa dadka dee gacan bira ku hayo marka waxaan malay dadka laftirkooda waxay iska jeclaadeen ama iska rabeen mahayne waa la qabatiyey inay hal jaha u joostaan oo ay dee fikraddaas u sinaadaan ama ay qarannimadooda iyo wixii de ninkaas ku kulaaminay marka ay aaminaan laakiin siyaasadda xaggeeda anagoo sii gelinbo shacab ahaan iyo adiga dadka day to day la kulmaysay iyo ardayda iyo qowmiyado kala duwan oo kuwa Soomaaliya kuwa Uraage kuwa maxaa la jira Amxaare oo isku meel wax ku barto maadan dareemin maxaa la jira kala fogaansho iyo isnacaab iyo waxaas ma dareemin arrinta siyaasadda expertise normally mana ka hadlin oo saa sheegtay waxaan ka hadlayaa shacab ahaan iyo experience-gayga dad qowmiyado kala duwan qiimo wada nool saaxiib ah wax wada baranaya nolol fiican ku jira baan tagi garanti wixii siyaasadda waa meesha laakiin sida dadku wada joogay waxay qaab cajiib fiican sax marka 5 sanaad ku dhamaysatay waa soo meesha waxa banaanka aad saaba gobolka Amxaarada sax afkooda barat Amxaariga waa bartay hadda waa ilaawo sida loogu hadlaa bartay laakiin qoraalka maahan Soomaaliga aad buu uga duwan yahay fadhiya Soomaaliga uga duwan shaqo isku malaha okay marka Soomaaliya ku laabatay shaqada bilowda maxay ahayd shaqada markaan waxaan noqday infrastructure engineer marka shaqada wadankeena wadan burburay dadka wadanka jooga hadda mataqaanaa waqtigaa marka waxaa xoog la saari jiray waxyaabaha bini'aadanimada hay'adaha ka howlgalaya wadanka employerska ugu waaweyn waxay ahaayeen hay'ado wadanka jooga oo international ah United Nationska iyo dowladda
markaan shaqada waxaan ka helay international organization World Vision la dhihi jiray engineer-aan ahaa laakiin shaqadeeda waxay ahayd runtii cajiib ah shaqadeeda waxay la xiriiray iskuulada qaybta waxbarashada iyo caafimaadka xooga saari jiray isbitaalka ugu weyn hadda TB da Puntland designkiisa anaa sameeyey garowga yaala waxaan ka dhisay iskuulo meelaha remote areas tuulooyin fara badan oo ku yaala dugaal waliba khaasatan mataqaana tuulooyin yaryar dhul remote ah biyagelin baa waxaan ka sameeyey magaalada Jariban mudug ku taala oo u safray isbitaalka gaalkacyo dayactir lagu sameeyey qaybta TB da qayb ku lahaa marka runtii waxay shaqo halkaas sana aan joogay runtii aad aan u helay qanaaco weyn intaan ka shaqeynayay waxaan ka soo qabtay shaqo aad muhiim u ahayd marka hal sana ka shaqeynayay intaan ka tegin Soomaaliya ku aadin marka halkaasana waad marka soo dhameysay undergraduate ku jirtay inaad masterka hore ka apply garaysid baad codsatay soo Korea ku soo baxday Korea so marka anigoo shaqeynaya waxaan aaday Nairobi Kenya marka aan Kenya jooga baa nin Maxamed wada saaxiibana hadda baa wuxuu igu dhahay niyo waxaan arkaa inaad joogtid Westgate markii aan marka aan jooga baa sawir ka soo qaaday marka meesha joogtay waxa furan scholarship Korea so apply global Korea scholarship aniga marka waa diyaarsanaaba documented everything computer ku jira documented waxay iyo daabacada warqadaha wax siixay wixii hard copy u baahna wixii dhan isku dubartay safaarada la geeyaa safaarada Korea kula day Nairobi iyo documented iyo Korea bas anaga ku soo wacnaa la iska bax aniga waa iska tigay sax maalintii waxaa okay we shortlist waxa ku jirta liiska gaaban interview player la interview laga qaaday waa si baxday documented dheeraad laga baahday bas documented la gudbiyay marka saddex process la maraa safaarada ka gudbiysa kadibna waxa u gudbiysa jaamacadaha marka kadib dawladdu waxay offer ku siinaysaa scholarship qofka soo furay qof walba u furay process la yaqaan oo Soomaali badan ay codsatamiya mise waa marka ay cusbaa marka uu cusbaa Soomaaliya hal qof la siin jiray sanadkii wuxuuna ahaa mid ka madax banaan dawladda Soomaaliya waxa laga yaabaa mataqaana in arrintaas خير وحنا كجرا بس إذا برنامج أي دولة كوريا ما مشوا competitive وعدالة لو سمي وأي قف كي وأكان وقال معي دورتان أي دورتان صح مركا كذا نقطة بس هالقبل النسيج السماء مركا باص كاس بانكو بحيدات كنا أدوك كنا بحد مرين كلا جاء global Korea scholarship ولا ده قاعد تشمه خلا قفا صوت سنة ضبع و PhD ماستر research postdoc سويجرا مركا سنة كواكه سنة كلا بخرج دوية سنة كلا كنت بقف كي مركا scholarship كاس Soomaaliya ka imaada ala noqon ana noqday hay sidaas ku baxay waxa tagtay Korea tagi hay waxa tagi magaalada Guangzhou oo luqadda waxa inaan aado school luqadda waxa ku jirta condition waxa sanadkooda luqadda waa inaan barata Koreanka marka luqadda Koreanka sanadkaas waxaad ku qasbantay inaad baastid haddii aad baasto waxa lagu siinaya extension oo lagu kordhinayo 6 bilood kala sii dhigan kartaa haddii 6 bilood ku baas weydo wadankaaga lagu celinaya marka وخصبة إن اللغة شيء كوريان كباسو اللغة الكورية مركان ديجانا إلى 6 بلوت وأنا حسيت بيش أجلس عم بلعبي بيشي ماتش وكوباسي وأنا خصبة مركان واحد زميل جري معنا والواحد حفيدين جري صدق يعني كوريانا اللغة الجرامر إلى الجرامر كان برينجري مقارنة الحمد لله مركان حواي واباسي level كي 4 بوها marka levelka hadaad gaartid normal waxa way classida Korean ku dhigan kartaa dadka way isfahmaysan emailada Korean ku qoran jiray waxa way ma fahmaysan markii dad waxaan bilaabay blog baan furtay oo ma fahantay Korean ku qoro waxa la dhahay Soomaaliya jeedero alki getting to know Somalia properly marka meesha dad Soomaali ka soo reeyay Soomaali way soo reeyay dad joogay ma badnayn okay yarkan ku sheegay saaxiibkii Maxamed iyo wiilka la joogay abshir la dhaho iyo خانة قبر مركا ويسوري ما بدنا لك وحروا مركا أنا impression كأوري كان كوريان كمركا الماضي أو الوقت كانت وانتهي ده already ودان كلاون Soomaaliya waxaad ku soo barato luqadda ka duwan waad soo aragtay laakiin dadka aad bay uga duwan yihiin Afrika Itoobiyaanka dhaqankooda diintooda hab maamuuskooda waxaas oo dhan wixii kula yaab badnaa iyo waxaad kala kulantay iyo waxyaabo badan oo aad isleedahay ama ayaga nooga saxnaa anaga ooga saxnaana waxay say ahaataba laakiin anaga hab dhaqankanaga iyo waxa aan maalin kasta la qabsan aad uga duwanaa ka yaabay oo nooga taabay jiraan wallahi waa runta dhaqan Korean oo ka duwan yahay ayaga horta waxa waaye waa dad isku mid ah qomiyad ahaan hal afay ku hadlaan diin ahaan laga mid kala duwan yihiin laakiin waa dad ethnically homogeneous ah oo isku mid ah markaan tagay meesha marka arinta
waxyaabaha ugu xiisaha badan waxaa qofka marka Soomaali yahay waxaa jira perception laga haysto Soomaalida waxaa jira marka Koreaanka inay yihiin la afduubi jiray burcadbadeed Soomaaliya marka waxay ku malaynayaan burcadi ku weydiinayaan wow waxaa laga yaabaa qaybtooda inay ku malaynayaan ha marka waxaa lagula xiriirinayaa burcadbadeednimo ma garanaysaa Soomaaliya midii kale dadkan bulshada waa bulshada baqada kale leh صح qofku ka sareeyo iyo cadaadiya fahmaysaa waa inaad respect sisa qofku ka sareeyo marka qaar ka yaaba sidii ilmaha inay kula hadlaan ku qayliyaan marka hadduu qofku fahmin qalbiga noocaas hadduu fahamsanayn waxa laga yaabaa inay isku dhacdaan hatta aad ku garaysido isaga tagto waxbarashadii aad waqtigiisa pressure ka lagu saaraya ayagana waxa caadi ka tahay idan caadi ka tahay dhaqankooda waxa kugu qaylinaya dadkii wax ku bariyaa mise dadka xataa isku levelkiina ardayda kugu qaylinayso may dadka waxa waaye aad u shaqaysid iyo dadka wax ku baraya way kugu qaylinaya marka haddii aanad fahamsanayn waxaana keenaya dhaqanka waa dhaqan askarinimo marka askartay galaan qofka uu high school ka baxo Koreaanka askarta loo diraa militariga kusoo jiraan in muddo markaas bay kusoo Soomaaliya ahaan jirtay gacanka kaligeed qof kasta oo high school kusoo dhameeyo sanad miyaan salabo ما حاسس ما kusoo qaadanaya military waxaan arkay niman heesayaal ah oo Korean pops malada K-pops oo adduunka dhan caanka ah oo stage weyn buuxiyo oo tabii xirtay leeyahay waa inay fasax qaataan military Korea soo galaan sanad iyo wax warka waa process dadka dhan soo maro dadka dhan ba askar ah dadka dhan ba askar process kaas lagu marinayo sax marka it was very interesting maxay ka hadlaysan maxay ku hagaajisay maxaad kala kulantay maxaad said adiga I think Soomaalida Mareykanka kala mid yahay dadka kana wada jira adigoo street talkers abaanahayo aan ma aragtay Mareykanka dadka badan hadii xataa rabeen inay ku dhaleecayaan ama inaad wax ku xuntay ku sheegaan si yaro jajiracsan bay kugu sheegayo si af magaalnimo ma jirtay magaalnimo ah isku day inay ku sheegaan inaad waxaan wax ka bedesho anaga Soomaaliya sasmaan ahayn la tarkanaga oo waa straight talkers baan ahaa oo xidda qalad waa saxdeen marka waxaan filayaa Koreaanka inay anaga xaggeena naga sii jiraan Koreaanka naga sii xag jiraan waana waxyaabaha keenaya inaad u dulqaadato dhaqanka macna haddana maalinta u soo dulqaadan ma garanaysa oo la fahmin waxaas maanta ma joogin meeshan joogo sabaal baan ugu hayaa cadaadis badan baa iska jiray waa laakiin qayb kamid ah nolosha muhiimadda waxay adiga gool baa leedahay hadaf baa leedahay hadafkaagiina xooga saartid dhaqankana fahamtid luqadaad baratay qofkaan meeshu ka yimi wuxuu ka wado isugu hadlaayo waa ina akhrin ka dhaca marka runtii waxay ahayd arrintaas arrin cajiib ah safarkaaga waxbarasho wuxuu kuu qasbay ama uu kuu fudeeyay andhaha qasab maahe inaad wadamo kala duwan wax ku barato Itoobiya wax ku barato South Korea wax ku barato haddana oo dambe Mareykan aad joogtid luqadaada hooyad ku dhalatay af Soomaali waha marka luqadahaas kala duwanaanshahooda waxaad kala kulantay sidaad kugu fudaatay inaad mid baratid bal ayadana wax ka taabo waa su'aal fiican aniga afkayga hooyo waa Soomaaliya ku dhashay sheegtay luqadda Ethiopianka ama Amhariga markaan baranayay waxaan bartay ku hadalka waxyaabaha communicationka afkaas laakiin qoraalka waa isku diyaan barto waqti uma helin ku si fiican u barto laakiin waxyaabahan ka bartay waxa kamid ah luqad in la barto waxaa jira scientific ama science ahaanba qof walba qofku luqado badan ka badiyo qof waxa weeye in maskaxdiisu waxa dhahay ay ka weyn tahay ama ay runtii mataqaanaa cognitive-ka aad u sareeyo waxay ku fududeynaysaa luqado kala duwan baratin waxyaabo badan oo adag baratin luqadda waxay sameynaysaa connection cusub maskaxdaada neural connection aniga expertise ma area laakiin waxa waaye waa common knowledge inta ognahay qaybo aan maskaxdaada isku xirmin baa markaad luqad cusub barato isku xirmay xamar iyo xoog iyo adkaysi maskaxdaada ayna lahayn ay yeelanaysaa markaad luqada cusub baratid sax wey marka ani mar walba scientifically iyo biologically waxaan aaminsanaa luqadda aan baranayo cusubi inay wax tarayso mar walba waana ay tartay صح Ethiopia environment-ga Amhariga ku hadlay maskaxdeeda connections badan bay samaysay waxa laga yaabaa inay successfully inaan u dhamaysto bachelor's-kayga markaan joogo Ethiopia inay ku contribute garayso qayb ka qaadato luqadaas markaan tagay Korea si lamida Koreaanka inaan barto for sure 6 bilood 8 bilood gudahood inaan ku baaso afka Koreaanka waxay big deal waxaana arrintaas oo dhan foundation oo waxa waaye quraanka oo kale sida loo barto wadayarka Soomaaliya madrasa la tagaa adoo ilmeeyara quraanka 2 jeer aan dhameeyay markii labaad anoo dhexda maraya aan dhamayn baan ka tagay laakiin si guud baan u dhameeyay mar labaad baan ku celiyay marka luqadda waa adiga arkay xifdinta aad xifdinaysa hada quraanka naftigiisa waxay kamid tahay adoo Carabiga iyo kale baan dareemaya iyo u dhowday adoo Carabiga kale bartay marka waxyaabahaas oo dhan maskaxdaada waxay sameynayaan xoog bisinayaan waxay kor u qaadayaan chances-kaaga successful ku noqon kartid waxay kor u qaadaysaa mataqaanaa qaabkaad u fikirtid waxay qof qaabkaad u baratid marka runtii waxyaabahaas dhan way caawiyeen
taa Koreanka barashadiisa waxay iga caawisay inaan si successfully u dhamaysto masterkii Koreanka ma garanaysaa anoo afka hooyo yahay madrasada quraanka la barayo carabi ah amxaarigii ay ku khasbara afkii suuqa iyo dadkii communication inaad soo barto Koreanka sida Englishka ay baray heer aan wax ku qoro emailada ku qorto communication ku sameeyo blog ku sameeyo marka barashadooda oo dhan marka qofka raba inuu barto waxyaabaha sadda ardayga Soomaaliga ah waxa waaye waa inaad eegtaa faa'iidada uu leedahay in luqad cusub barto maskaxdaada waa inaad u tiriid garaysaa sida in maadki inuu ku fududayo waxyaabo kale inay ku fududaanayaan in luqadan inaad baratid wax badan bay ka caawinaysaa ana hadda luqada Koreanka bartay waxyaabo badan bay caawinaysaa culture-ki ma baranaysaa wadanka waxa laga yaabaa xataa qaabka u fikirta emotional xataa qaabka u fikir inay wax ka bedesho bini aadan kala saan lama caamilo nolol ahaan saan u noolahay marka waxyaabahaas oo dhan bay caawinaysaa marka wax fudud ma aha dhaqamada kala duwan exposure-kada haysatid ama dhexgalaysid luqadaha kala duwan aad baranaysid academically successful baa noqonaysaa socially successful baa noqonaysaa insha Allah marka waxaan soo gabagabeynaa qaybtii Korea 2 sano joogto soo masarkaaga baa dhamaysay Mareykanka u soo wareegtay processkaas asayna nolosha soo ku imaaday arrinta waa arrin xiiso leh because amaanshaha Mareykanka waa arrin taagan topic waliba Soomaali ahaan community-ga Korea markaan dhameeyay masterta aan dhameeyay markaan waan shaqeynayay waxaan ka shaqeynayay lab cancer research waan sameynayay research assistant-na waan ahaa marka Mareykanka connection baan ku lahaa taana niman waxaa jiray professor jaamacadda New York University Institute of Marine Institute of Urban Management baa jiray marka waxaan ahaa research assistant waxaan sameyn jiray subway-ga Seoul oo la dhisay datadiisi baan ururin jiray documentigiiskan translate garin jiray Korean ah marka database weyn oo 400 oo waxa waaye ii sheegeen project ay ku jiraan wadamada adduunka oo dhan Asia Africa Europe baan involved ku ah project-kaas qayb ka ah ilaa iyo markii xataa interview markaan safaaradda Mareykanka maray Korea la dhahay ma aaminayno Mareykanka hadda korma tagtay ma joogi sababta magacayga wuxuu ku jira profile-ka jaamacadda marka horta Mareykanka connection noocaas naga dhaxeeyay taariikhda laakiin haddana shaqadeeda Korea laftigeeda muhiim ah shaqadan ka shaqeynay waxay data analyst baan ahaa cancer research baan ka shaqeynay shaqadan kale oo Mareykanka aanu hayeen shaqo waxa way la rabay in lagu ogaado Mareykanka halkii sabwayada waxa lagu dhisay $1 bilyan Korea waxa lagu dhisay $130 milyan marka waxa beermaayo marka waxa dhahay sidee baa Mareykanka costigiisa u fara badan yahay Korea u yartay soo ajsal laga jawaabay waana isku input way waxa galay okay marka ana project-kiisa ka shaqeynay marka horta project waxa ahaa remotely ana u shaqeynay xataa Mareykanka idin ugu jirto mataqaana global Mareykanka connection-kaas ugu jiray Korea marka shaqaan haystay oo waxaan ahaa contribute gareynay society-gi ku shaqeysanay cilmiga Korea ku bartay markaan tagay safaaradda waxa la dhahay markaan interview marka waxaan xasuustaa markaan sameynay ablegarinay fiisaha waxaan isla lagu masiinay because passport Soomaali haysta laakiin si wanaag waxaan tagay meeshaan tagay safaaradda maalinta interview-ga lahaa safkaan maray marka su-aashii ugu horreysay la weydiiyey waxa waaye Mareykanka hadda korma tagtay waa tagtaan because profile-kaagiya meesha ku jira marka waa u sheegay visa officer-ka waxaan aan weligii Mareykanka ma tegin laakiin waxaa jira project aan ka shaqeeyo oo New York University fadhigiisu yahay mashaariic noocaas aan ka shaqeeya adigu markii qaybtii finalka u tagay oo interview-ga caadiga ah maray aan ka gudbay line-ka yaa waxaa la dhahay interview waa laga qaaday su'aalaha la weydiiyey waa la ogaaday kow inaan qof established ah Korea jooga shaqeynaya research muhiim ah ka shaqeynaya Korea wax ku bartay markaa oo aan deganahay meesha waxa kale oo markaa aan deen haysto fully funded opportunity PhD admission and haysto documented waxa buu marka waxa la dhahay passport Soomaaliga ma aqoonsanin passport Soomaaliga ma aqoonsanin safaaradda Mareykanka Korea ku dhahaysa sax kuma dhihi karno visa kuma siinayno sababa kugu dhahay visa kuma siinayno ma garanayno marka waa ka shirayna arrintaada aad iska bax okay marka aniga waa iska baxay ya Soomaali kaaliga ibaslan wallahi ma isma oran I was proud Soomaali waxa ii fiican ana Soomaali in la diido inta la diido laano dhalasho kala wata waa taas oo iga xanuun badnaan lahayd marka hadda wadankan haysto Soomaalinimadii waxa ahayd walbo taasaa ii fiican ma garan marka aniga runtii waxaan islahaa mar walba haddii lagu siiyana Soomaalnimo ku hesh haddii aan lagu siina waxa waaye Soomaalnimo lagu diiday ma garanaysaa marka runtii markaan ka baxay oo coffee shop aan iska fariistay ka soo horjeeda safaaradda probably markaan fadhiyay meesha 30 daqiiqo ka hor soo dhacay marka gabadhii safaaradda ay soo celisay markaa congratulations we have approved your visa visa-ga waa approve gareynay ma garanayay sababta ka dambeysay si shaqay gaari ma garan karo si wanaag visa waa la ii keenay bil gudaheed
marka horta nasiib wanaag saasaan kusoo baxay runtii laakiin waxaa la eega contextigan kusoo baxay sida qof walba ra'yi bay ka siinaysaa researchkan ka shaqeynayay Korea connectionkayga Mareykanka fursadan Mareykanka haysto fully funded ahay waxyaaba badan marka kulli waxyaaba badan iyaga laftigooda qiimeeyeen background check baa lagu sameynayaa booliiskii Korea lala xiriiraya saad taqaan ahayd marka nasiib wanaag laakiin Ilaahay wuxuu qadarayba calafkeena meesha ka qornay inaan meeshaan imaado marka sidii aan ku imaaday laakiin calafku waxaa yidhi isagoo lugeyna kuma imaadan adiga raalisid u dadaashid aad magacaaga maxaa la jira lasii aqoodo waa inaad maxaa dadkan ku review gareynayo go-aan kaa gaarayo sababo ay isticmaalaan oo go-aanka ama haa ku dhahaan ama maya ku dhahaan aad siisid marka waxaa filaya adiga dee shaqadaadi bay ku qanceen iyo shaqooyinka aad la haysid kamiriyaasha aad la shaqeynaysid marka nin la aamini karo oo de recordle inaad tahay waa kule fuudasaan dhihi karaa adoo Korea joogo miyaad marka go-aansatay waxa aad rabtid PhD-gaaga inaad ku samaysid sida ayadaad PhD ku apply garayso lagu aqbalay mise PhD general baad apply garayso markaad Mareykan imaad ka bacdi baad toobigaaga iyo meeshii aad ku takhasus lahayd doorato hal mid baan rabaa inaan clarify gareeyo PhD-da waxay kaga duwan tahay masterta oo kale ama mataqaana bachelor marka waa very general laakiin PhD-da waxaa ku admit gareynaya professor marka horeba ba area niche research la yaqaano area professor gaara la shaqeynaysto ku advocate gareeya adi xataa during the admission process admission committee ku advocate gareeyo that can make a case for you waa inaad la soo xiriiraan markaan joogay xagga professor waxay Twitter-keeda kusoo qortay okay waxaan raadinayaa arday area sustainable transportation ka shaqeeya PhD ahaan u qaadanaya broadly speaking laakiin mataqaana haddaa xiisinaysa ila soo xiriir email Twitter kusoo qortay ayadoo Ohio joogto professor ana Korean joogaa Twitter-kan ka arkay waxaan galay page-keeda research-keedan eegay mise waa area-dan xiiseynayba anigana master thesis-keyga waxaan ka qoray sustainable transportation in the southern metropolitan area markaas waxaan dhahay well waxa weeye research-kaaga iyo research-keeda waa isku xiran yihiin iyadoo la xiriir email aan usoo qoray waxaan usoo diray marka standard baa fiican qof walba waa rabta in PhD sameynaya marka xiiseynaysa in PhD bilowdid professor la soo xiriiraysid adiga is introduce garee qofkan CV-gaaga kasoo attach garee waxyaabo kale oo credentials haysatid sida shahaadooyin transcriptiyo kusoo attach garee additional information laakiin CV-gaaga waa must is introduce garee research interest-gaaga u sheeg be specific warqad generic ana ha soo qorin emailka marka waxaan qoray email very specific area-da ka shaqeyso research publication-keeda si ula xiriiro thesis-ka aniga sameeyey waxaan expect gareynayo waxaas oo dhan aan kusoo mention gareey immediately ila soo xiriiray laba maalmood iga maqnayd marka mise maalin ay ahayd waxay dhahay okay Cabdirashiid that's great waxaa iisoo dirtaa statement of purpose-kaaga waana document ugu muhiimsan PhD admission statement of purpose-kaaga qoray waa rajeynaya maalin inaan dadka la share karay statement of purpose-kaaga component badan ay leedahay guidelines la raacaa jira waxaa ugu muhiimsan ka barta laakiin waxay tahay asbuuc ay u qaadatay inaan ku qoro statement of purpose-kaaga waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye kow adiga saa isu introduce garaynaysa laakiin is introduce garayn kaliya maaha adiga haddaa iska hadashid waa very broad laakiin adiga in relation to this qofka wuxuu asaga raadinayo sidee isu introduce mana customize garaysid adala laftirkaaga research area-daada research interest-kaaga meesha aad vision-kaaga PhD-da kadib maxaa rabtaa inaad samayso professor baa rabtaa inaad noqotid xaggee rabtaa inaad aadid sidee adversity usoo overcome garaysid mataqaanaa attitude-kaaga ku wajahan diversity and equity and inclusion sida dadka u respecti garaysa dadka ka kala fikir duwan kaa duwan cidaa tahay waxyaabahaas oo dhan waxay picture ka siinayaan qofka meesha aadis midda kale trajectory baa la eegaa marka waxa la eegaya meesha ka timi iyo meesha u socotid warqadaas waxaan rabaa inay sheekada waa aniga waxaan dhihi lahaa the most important document in the application package waxa way statement of purpose-ka kaas markaan diray marka waxay siisay green light okay statement of purpose waa akhri admission package-kaaga marka wax xaray ka dhaxad waxaan rabaa arrintaas aad baan kugu raacsan in anigana ku daro iskuullada Mareykanka weliba kuwan comparative-ka oo highly rated schools-ka formula hadda kahor nin admission advisor igu yiri iyo sida hadda adiga tiriba isku u ka ekaaday ninkaas wuxuu igu yiri jaamacadaha markay ku review gareynayaan oo application-kaaga ay fiirinayaan oo ay inay go-aan aqbalaan iyo in kale ay gaarayaan waxay fiiriyaan qofkan haddii aadan aqbalin maanta ma qof inta iska baxo iskuul kaloo adinkoo kale helo maxaa la jira nolosha successful ka noqo hadhow wax noqon doono oodan adinkana dhihi karin anagaa mas-uul ka amiya mise qof waxaa weeye adinka idiin baahan oo hadda adinka maya dhahdaan basementkiisii gurigiisa kaga noqonayo aan baabah noqonayo waxba noqon doonin
marka badan waxay raadiyaan qof ay stamka saartaan ay og yihiin qofka inuu successful noqon doono hadduu ayaga mara iyo hadduu wadda kale maraba qofkaan wax celin doono ma jiro marka intuu meel kale mari lahaayo qofkan hadhow ay jaamacad kale iyo dad kale ay recordkiisa sheegan lahaayeen adinka sheegta marka wuxuu dhihi jira aad odka jira intaas hadda aad igu ekaatay oo ah jaamacadda markaa isku sharaxaysid oo adiga qofkaad hay sheegaysid waa inaad mustaqbalkaaga sawir ka siisaa si ay u jeclaadaan in mustaqbalkaas ay qayb ka noqdaan ayaga latirooda arrin cajiiba waa si fiican baa u dhigtay waa kugu raacsanahay waxa weye inta badan potentialka la eega adiga arka marka shaqooyin lasoo xataa marka professor lasoo dhijiyo shaqadeeda waxaa dhahaa waxaa jira waxa la dhaho daliil ama evidence marka demonstrated evidence wax caddaynaya marka inaad successful tahay applicationada samaysay activity-ga ka qayb qaadatay koorsooyina dhigtay ama potential for success qofka inuu potential ka leeyahay laakiin waxyaabo kale waqtigaa yaraa baa laga yaabaa 4 sano PhD wax walba mataqaanaa you can't tap into your potential in 4 years marka waxa laakiin waxa sawir laga siinayaa saa sheegta hadda sawir waxay ka helayaan meesha u socotid waxa qaban doontid haddii la qaato potential ka laftiga marka ugu raacsan arrintan waa runta halka waa xikmad cajiiba ku jirta marka sanadkeed marka laga aqbalay programka dhimaada Mareykanka 2021 markaad Mareykan imaaday waxaan rabaa inaad noo slow garaysto impressionkaagii ama waxaad kugu horeeyay Mareykan waa wadan weyn oo adduunka dhan laga yaqaano qof kasta laga yaabo inuu ama wax ku barto ama u guuro ama uu tago mar uu ku fikirayo wixii aad kala kulantay iyo bal wixii aad ka filaysay iyo wuxuu noqday inay is yeesheen ayadana bal wax nooga sheeg horta arrinta muhiimka waxa waaye Mareykanka aan joogno teknolojiyada ahaan wadanka ugu horeeya caalamka aqoon ahaan wadanka ugu horeeya wadan aad u fiican dad fiican ay leeyihiin wadan aan runtii ammaan abaal badan ugu hayo fursadan helay iyo joogidisa aan joogo intaba waana runtii wadanda qof walba mataqaana adduunka dacaladiisa jooga xataa shiinaha la tartamaya ay dreamkiisa inuu yimaado oo wax ku barto ama ka shaqeeyo horta waa wadan noocaasa cid maanta ka qarsoontahay Mareykan waxa uu yahay kulligana isku raacsannahay waa the best country in the world wadanka ugu fiican adduunka waxa waaye maanta waa Mareykan markaan imaadayna runtii in aan helo evidence caddaynaysa inuu yahay wadanka ugu fiican maahane wax xumaan aanay kuma arag wixii kale waa meesheeda laakiin anaga waxaan ka hadlaynaa anaga ardayga nahay wadankan fursadaa taala markaan imaaday PhD aan bilaabay aqoontaan helay waan xasuusta sanadkii ugu horreeyay PhD sanadii iga adkeyd nolosheeda ima soo marin waxbarasho ya sanadii ugu adkeyd waxay ahayd challenge baa jiray challenge adag marka waxay ahayd inaan ka gudbo ma fahanteen weekendi aan nastay ma xasuusto normal horta generally 4 sano joogay Mareykan oo PhD sameynayay ma xasuusto maalin marka laga reebo maalin Christmas ah ama Thanksgiving ah maalin inta computerkayga isku laabay aan waxba akhrin ma xasuusto ama aan shaqo qaban ku la xiriirtay PhD-deeda 4 sano oo toosa maalin xasuusta aan sariirta aaday ama seexday habeen waqti ku seexday aan maalinta waxba qaban ma jirto weekend iyo waqti walba waa shaqeynay waana wadan sida competitive ah systemka asaas ah loo dhisan garay haddaana saa aan u shaqeyna kuma dhameeyo PhD 4 sano runtii waa waqti kooban 4 sano inaan ku dhameeyo laftigeeda somehow waa miracle qadarta ilaahay alxamdulillah ilaahay waa mahad iskale laakiin 4 sano marka intaa maxaan ku bartay Mareykan wadankan iyo waxaan ka haystay wadan waxa waaye fursada loo sameeyay opportunity-ga loo sameeyay aqoonta ay taalo resource-gana lagu siinayo resource-ga wuu yaalaa khayraadka wuu yaalaa waxaa lagu siinayaa labs waxaa lagu siinayaa software-da u baahan inaad isticmaashid waxaa lagu siinayaa professor supportive ah waxaa lagu siinayaa book iyo library furan waxaa lagu siinayaa mentorship advice-ka u baahnayd wax walba waa lagu siinayaa adiga waxaa la rabaa inaad dadaashid oo guulaysatid horta waa wadan resource-ga intaa leegu yaallo ya incredibly massive ma fahanteen waxa way horta wadan fursadaas ay taalo way dadka bulsho ahaana waxa way dad aad mataqaana qof walba wadan waxa way qof walba goonidiisa iyo tabartiis xoog u saara of course individualistic iska noqonaysa xooga waxa saaraysa wixii aragtay goolka leeyahay hadafka leeyahay horta waa wadan environment noocaas isii Mareykan waana wadan wixii aan tuumayay ya ay dhab noqdeen waana wadan maanta waxa way teknolojiyad ahaan caafimaad ahaan waxbarasho ahaan mid walba waxa waaye ku horeeya adduunka oo loo imaanayo tusaale ah horta Mareykan waa wadan noocaas hadda ay weydiiso su'aashaada Mareykan saa ka haysatay siduu yahay
runtii waana sababta keentay inaan markaan dhameeyana aan sii joogo waxaana jira intaan ogeyn qofka hadda waxbarashada timaada waddankan waxaa jira oo qof research fiican waddankan national interestkiisa ka shaqaysid waxaa jira system lagu galo oo lagu dego green card acquire citizenship ku qadanaysa oo national interest waiver marka adaama jaamacadda dhammayn baad xaraynaysaa green cardka si mataqaana adoo case ka dhiganaya wixii aad qabatay intaad PhD sameynaysay researchidii aad samaysay say u anficeen waddankan iyo sidaa muhiim ugu tahay iyo ereyga ka shaqeynaysa wax waddanka interestigiisa ama amnigiisa ama wax soo saarkiisa la xiriirdaad baratid waxaa lagu siinayaa tixgelin dheeraad ah si sharciaad ku heshid maraykanka deganaansha waka waddankan waxaa ka jira waxa la National Science Foundation garanaysaa meesha hadda waagi dhaweyd funding cuts badan baa la sameeyey laakiin maanta haddii aan hay'adaas ka jirto maraykanka cudurrabo badan lama dabargooyeen teknolojiyad badan maanta la haysta lama heleen waxaa laakiin waxa weeye waxaas oo dhan soo tigeliyey waa National Science Foundation funding ay siiso jaamacadaha si ay u tababarayso arday PhD dadkaan ogeyn taas waa muhiim in to put it in perspective markaad timaadid oo ardada weliba khaasatan waddankan pipeline international students weliba PhD markaad sameynaysid u timaadid waa waxa dadku ka faa'iidaystaan dadka researchada sameeya dawooyinka cusub soo saara electronics cusub soo saara waxyaabo badan waddankan contribute garaya waxaana fangareeya waa National Science Foundation waana hay'adda wixii dagaalkii labaad adduunka dambeeyey waana wuxuu kaga hormaray adduunka waana wuxuu hadda China kula tartamaya marka inta badan horta fundinga ugu badan halkaas ku yimaada marka research sameynaysa waddankan waa resource-kan ka hadlay qayb jaamacadu qaadanaya iyo fursadaha waa incentive dad ka hadlaynayo dowladda waxay gogoldhig u samaysay in waxyaabaha ay doonayso inay adduunka kale kula tartanto ay dadkeeda u helaan resource-ka u baahan yihiin hadday lacag ahaan lahayd hadday facilities ahaan lahayd hadday system kale hadee la sarabgalay ahaan lahayd waxaan access garin karo jaamacadaha waxaa access garin karo dadka private residents-ka ah dadkii research samaynaya xataa aan ahayn maraykan oo dibadda ka imaanayo marka waa gogoldhigaas basically oo ah annaga qaybtooda dowladda qaybtooda ay qabanaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay dadaalka qaybta kale in ayagana dadka individualska ama private institutionka ama sidoo kale researcherska ayagana qaybtooda qabsadaan waaran aniga researchka dissertationka qoray waxaa fangareeyey environmental protection agents EPA waa fangareysay project weyn oo $1 million ku kacayso qaybka ahaa so waxa waaye taas waxay ku siinaysaa sawir se shaqada central ugu tahay waddankan iyo sida loo fangareeyey marka waxa waaye investment intaa marka lagu geliyo pathwayna lagu sameeyaa kusii joogta waddanka probably waxa waaye waa fursadan ka hadlaynay successful waa noqonaysaa dadka waa adiga arkayna waxaa dhahaa dadka badankooda 50% dadka sameeyey startup-yada waddanka teknolojiyada badankooda waa dad immigrants ama dad magaranaysa international students ah waddanka soo galay maraykanku wuxuu aad khatar ugu yahay oo dunida kale uga horumaray waxaan wuxuu ku sameeyaa dunida la yirahdo brain drain oo ah dunida dadka ugu fikirka fiican ugu aqliga badan ugu dadaalka badan inuu incentives ama soo jiidasho u sameeyo inay inta maraykan imaadaan waxa ugu weyn adduunka maskaxdooda ay sawireen karto ay maraykan ka dhisaan annagana ninka reer dooran ahayn iyo ninka dooran magaalada ka imaanin maxaa la jira tuuladana wax ka dhisan iyo waxyaabo noocaas lagu jiro adduunka ninka soo farko ugu weyn haddii aad Afrikaan tahay haddii aad Chinese tahay haddii aad Arab tahay they don't care as long as wax waddankan wax kusoo kordhinaya sameynaysid waxa doontaa lagu siin waa lagu fasilitayn هذا هذا الكوتي وارنتا واحد اللي هذا بعد الشيء مريك صنطر تمايان واحد اللي مر مريك قرقد حدها مريك شينها ما قارين مريك وحنا هو قارين بعدها exactly point هذا سميسي واحد اللي مريك كا وحب بهني تتبع بليون أوقف إنه ده كوقف في عنك قاطع شيء ولا ترتم جينا جينا هنا وحب بهني هل بليون يقع إن استعمالها سي أمريكا ولا ترتمها صح تاسع معناها هذا الخلاص بيدعيا مركب أمريكا واقع ضدك وقعت وعدون كل ما أوفر land opportunity وحلو يلعب وعليه قفل بو إيمانه مركب smart people وضدك عدون كيم تدبر بليون أوقف بس أوقف باكو جيل كذا مركب أمريكا استرنجت كيسبة تدبر بليون عدون كله وكيم هذا حركة شينها هل كبلين يجي هنا كإيمان they can never compete اسكو عيال كمان شوية اسكو سيء ما تعتمد كلام لكن تاس of course سياسات كلها ريسكي بيجري هذه سياسات ده نسبتش صح ولي بهذا ولي بدنا يعني ما جنجرت نيك هذا عاركي تريليونير وجوهرية دونك بليونير بعد ما قلت لي مليونير ممكن تريليونير وجوهرية وعنين ساوث أفريقيا وأمريكا كمحل جري سلدي سويها أمريكا system كيسي incentives كفايدست إلى ماسك. international student you exactly yeah عندنا وكل مرة yeah okay مركب حن حلو حن فيرني stats
dadka PhD ga sameeyay iyo dadka maxaa la jiraa sameeyay waxaas marka waxaan rabaa su'aasha inaan ku weydiiyo Mareykanka sanadkii 2 milyan iyo bar adi 2 milyan iyo 2.2 ilaa 2.5 milyan oo arday baa undergraduate dhamayso marka loo barbardhigo dadka PhD ga sameeyo waa 55 kun ilaa 58 kun marka la isku barbardhigo waa halkii arday oo PhD dhameeyo 35 kun oo kale baa undergraduate dhamayso دامعنا ده حاول يضبط عن graduate لما يمسي pursue كريان PhD و very rare تطير أو كوان يا PhD نسميان قاعد صدق ده يوجد ده reason كودي اللي لكن محرر هذه تعال إن هذا نوجد عليه صوت على PhD كدورة تناسبس سؤال في عن كو هرت أنا جمر كان يرى dream كي هو حينا professor نقطة سيا professor نقطتين وحاول بانك advanced degree نا PhD هيسد صح كو motivation كود حاجة سكي ماري كان لبعض محكي ماري waxaa la dhaho aniga mar walba waxaan lahaa tendency mar walba waxaan u hiloobayay adduunka inaan ka dhigo meel fiican ma fahmaysaa qaabkan uga dhigi karan waxa weeye of course qaabo qof isagoo undergrad ka dhigi kara meel fiican master ah laakiin aniga markaa waxaan isdhahay qaabka looga dhigi karta waxa research kaaga inuu adduunka maxaa kusoo korin kartaa maxaa ka qaban kartaa researchkaygana wuu noqdaa hadda PhD deedo kale xoogga waxaan saaray baabuurta korontada ku shaqeysa sidee baa dadka danyarta ah ay u gadan karaan awoodaan dissertationkiga dhanba PhD dhanba isay ku saabsanayba sidee baa maxay yihiin barrierka sidee loo policies nacayb dowladda isticmaali karaan si loo remove gareeyo waxyaabahaas model gareeyo oo aan eegay marka taas macnaha waxay siinaysaa satisfaction in policyga marka hadhow warqadahan daabaco waxay gelayaan national policyga marka dowladda waxay leeyihiin siyaasad lagu yareynayo gadashada baabuur lacagta faraha badan ku baxda baabuurta korontada ku shaqeysa in dadkii lagu dhiirigeliyo charging stationska meelaha la dhigayay iyo waxyaabahaas oo dhan marka waxay siinaysaa waa qayb ka mid ah qorshahayga ahaa adduunka sida meel fiican looga dhigo marka waxay siinaysaa satisfaction in wixii aan qabto ay policy qayb inform gareeyaan dowladda oo impactigaaga uu ka weynaado waxa adiga shakhsiyan qaban kartida uu policy level gaaro policy level wada dhan lagu implement gareyn karo waxa soo ugu filan waxaan qornay paper ku saabsan xiriirka ka dhaxeeya iibka guryaha iyo in meeshu baaskiil ku yaalo St. Louis magaaladan ay dhahaan hadda Missouri waxay qaadatay researchka aan qoray waxay dhaheen okay Minneapolis baa ku jirta magaalada ka sameeyay 25% iyo guryaha u dhow meelaha baaskiilada ay ku yaalaan wadooyinka baaskiilada ay kor u kaceen qiimahooda waxay dhaheen marka there is economic case in investment lacag intaas milyan oo dollar ay gelino in bike infrastructure ama meelo baaskiilada ay ku socdaan wadooyin maraan aan ka dhisno magaalada so researchka aan daabacay baa evidence u noqday policy ahaan waxaa kaloo ka mid ah magaalada Wisconsin stateka Wisconsin saasoo kale waxaa ku jira warqadii aan daabacay waxay ku jirtay plaankooda active transportation planning iyo sustainable transportation planning ay sameysteen lagu mention gareeyay in faa'iido dhaqaale ay ku jirto in wadooyin baaskiilada ay maraan la sameeyo marka labadaa waxay siiyaan satisfaction waliba Mareykan anoo immigrant wadankan in wixii aan qabtay ay dowladdii stateadii garanaysaa ay isticmaalayaan researchka aan sameeyey si ay mataqaanaa investment u sameeyaan noloshii dadka u wanaajiyaan quality of life kor ugu qaadaan waxay ka mid tahay waxyaabaha hadda ka hadlaynay dadka Mareykanka maamulo ama governor ha ahaado ama maxaa la jira wasaaradda transportation ka ahaato ama mayor magaalada ha ahaado markasta waxay raadinayaan resources cusub iyo fikrado cusub iyo sidii magaaladooda iyo statekooda iyo wadankooda ay fikradaha cusub soo baxay uga faa'iideysan karaan marka looba dooyo inuu ninkan immigrant yahay iyo inuu ninkan maxaa la jira cadaan yahay iyo inuu ninkan xaafadada ka imaaday waxa weeye best ideas win marka ninkan ayagoon magacaaga laga yaabin in ay dan weyn ka sii lahayn fikraday la dhaceen taasay fulinayaan okay cabdishii Mareykanka imaado the land of opportunity soo sheegtay Soomaalida iyo immigrant adduunka joogo dhan wadanka ay rabaan inay imaadaan oo ay ka shaqeystaan oo ay wax qabsadaan oo dadkooda wax u qabtaan ay ku wada jirto waad imaaday adiga ardaynimaad ka bilowday sideed u manage garaysa pressure-ka aad hadii Mareykanka joogtay cabdishii wax soo qabo dadka wax tar maxaa la jira shaqee lacag soo saar adigana dib buug iyo qalin baad qaado arday baa noqoto laga yaabo adiga u baahan caawimaad sideed u manage garaysa intaas waa su'aal fiican runtii arrintaas waxaa u manage garay horta ilaahay waxaa uga mahad celinaya waalidkii aniga inay yihiin waalid fahmay waxa waaye markaan waxaan xasuusta markaan hooyada u sheegayay inaan Kuuriya aadayo anoo shaqeynaya oo mushaar fiican markaa qaadanayo wadankii jooga waxay dhahdaa hooyo haddii khayr kugu jiro Allah ku fududeeyo sidii ku aaday Kuuriya mar walba horta waxaa jirtay waalidkii waxay aaminsanaayeen waxbarashada qiimaha leedahay marka wax walba waxay ayagu wax ma bartaan qaarax kale
hooyadii aabahay wuxuu gaaray ilaa college level diploma hooyadii fursad ma helin ay jaamacad ku aado laakiin qiimaha weli la lahaayo maxaa lagu dhiirigelinaysa waa ka bay qiimaha ay waxbarashadu leedahay bay ogaayeen mid kale waxa weeye xilli hore bay ogaayeen inaan ahaa ilmo waxbarashada jecel marka waxay sameeyeen investment badan ay geliyeen waxay xoog saar marka waxa lagu leeyahay focus ka saar waxbarashada anaga waxba kama rabno waalidka marka waxay aaminsanaayeen muhiim iyaga waxa qiimo u lahaa inay aniga horumar gaaro waxa la okay adiga anaga hanaga walwalin صح wadankeena joogna waa shaqaysan alxamdulillah adiga xoog saar waxbarashada meel ka soo baxsan cidna kuma weydiinin Cabdirashiid 10 sano wax baranaysaa waxbarashada mar maatmiya aniga hooyadii aabahay baa igu muhiimsan case-kaas waxaan dhihi lahaa very unique sababtoo aniga waxaan maleeyahay Soomaalidu badan waxay leeyihiin waxbarashada mar maatmiya aniga markaan undergraduate dhigana 4 sano dad baa waxay ku soo wacayaan every other month ma dhamayso hadda maxaa dhamaysaa baashu 4 sano ee barsug bilka bacda dad soo wacay leeyahay ma dhamayso marka dad degdeg ku jiro marka waxaan maleeyahay I think yours is big unique may dadkayga family-kayga way fahmeen qiimaha waxbarashada waxaan leeyahay adiga meel iska soo saar waxbarashada xoog ka saar aniga waxba kaaga ma baahan waalidka saas ay aaminsanaayeen صح ما شاء الله marka aniga horta pressure ka ma aragtay ma jirin runtii waana arinayta inay ka bartaan waalidiin badan oo Soomaaliyeed dad badan oo Soomaaliyeed waxbarashada waxa waaye waxa kaliya oo kor lagu aado qofka isagoo zero jooga sagxada jooga hadduu kaliya wax barto meel sare u gaaraya wuxuuna kor u baxay waxa abwal mobility wadi garanaya marka waxa kalena wax kale ma keena waa aqoonta qofka hadduu wax barto adduunka meesha doon qiimkii aniga tusaale ahaan passport shahaada aan aqoonayn ma wadan Korea bachelor baan haystay bachelorkii Korea passport ay haystaan inta Ethiopia ay passport aan inta Korea shahaadada ka qaata passport Mareykanka inuu aqbalo inaan imaado ila passport aan aqoonsanin baa wadatay ma mutaan marka aniga waxa passport yaha shahaadooyinkii aqoontayda ku meel aqoontayda mataqaana waxay ahayd fure intaas oo dhan aan ku gaar inaan joogo Mareykanka marka qalinjibiyeen aqoontayda ku joogo marka mar walba waxa waaye muhiimadda waxay tahay waalidka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan ilmaha in fursad la siinay wax bartaan dadka marka haddii ilmihii waxbarashada fursad loo siiyo oo cadaadiska dhaqaale laga daayo ilmihii isaga meel iska soo saaraya qofka marka wax bartaan isaga wuxuu sameynaya wealth marka generational wealth sameynaya fahamisa ka fikray ilmihiisa wax u baran lahaa arrintan waa arrin muhiim ah waa arrin intay waalidiintu inay ku baraarugaan waalidka Soomaaliyeed halkan jooga iyo kuwa wadanka jiraba haddii wadanka aad joogto ilmaha waxbarasho Mareykan uu joogo ama wadanka ay English student yahay ama Mareykan deganto ilmaha halkan ku dhashay fursad u sii inay waxbarashadooda wataan xoog saaraan heerka doonana ka gaaraan qasama qofka inuu la PhD gaaro laakiin hadduu graduate school aadayo hadduu college xataa intaqaana dhameysanayo fursad u sii ha dhamaysto hadduu wax barto isagaa mataqaana wuxuu sameynayaa fursad mataqaana uu hanti ku samaysto hadhow qoys fiican ku samaysto isaga meel iska soo saaro waxbarashadaana ay noqoto waxa faqriga lagaga cararo runta waa arrin concept muhiim ah waxa kaliya xataa Soomaali Mareykan hadaan nahay jooga hadda oo faqriga uga carari karna waxa waxbarasho aniga carruurteena waxbarasho u dirna fursad u siinay inay college ka baxaan waxa ugu muhiimsan waa ka iyaga u taala hadhow they graduate school aadeen haddii PhD aadayaan laakiin muhiim waxa ah bare minimum waxa inuu ilmihii college ka baxay in xoog la saaro midaan waxaan maraynayaa inay controversy tahay laga yaabo inay been tahay laga tahay laakiin eedayn loo soo joogiyay dadka wax bartay ee Mareykanka jooga Soomaalida ee rabay inaan fikradaada ka dhigtay waxaa la dadka markay wax bartaan Mareykanka qofka Soomaaliga wax barto xaafadda Soomaalida degdeg ugu guuraa suburbkaas oo cadaan ku dhex dagaa asxaabtiisa iyo dadkiisa oo waxay noqdaan dad cadaan iyo dadka wax la bartay dadka la shaqeeyo community wax kuma soo celiyo kama faa'iido carruurka kale iyo dadka kale iyo ka dhex baxaa qof deegaanaas ugu abuurnoqda laga yaabo in qofka markuu wax baranayo meel cidla uu joogo dad asxaab iyo system cusub uu la qabsado laakiin waxaa horta kow asal ahaanteeda inay criticize run ay tahay iyo adiga inaad arrintaas fikrad ka haysid horta waa sax waxaa laga yaaba horta qofkan aniga evidence ma hayo laakiin waa wax la yiri soo maha horta waxay qof walba personal decision u leeyahay sax aniga laakiin personal value-gayga value-ga aan leeyahay iyo arrintaas isma qabanayaan aniga waxaan ka imaaday aniga waxaan matalaa bulshada Soomaaliyeed oo Mareykanka joogta kuwa wadanka jooga intaba waxa xaq la igu leeyahay waxay aniga aan u baahanahay inaan inspire gareeyo ardayda Soomaaliyeed wadanka wax ku barata inay community dhex galo hadda ujeedka u jooga magaalada Minneapolis waxa way shalay toole waxaan ka qayb galay Somali Society of Engineers waxaan dhageysan khudbada fiican ka joogto waxaan meesha ka hadlay wax kale waxaan u imaaday aniga waxaan ahay nin Soomaali ah waxaan rabay inaan saarno ardayda Soomaaliyeed injineerada Soomaaliyeed dadka rabay inay engineering bartaan arday badan oo high school ka dhameeyay asbuuci hore xataa yaa wada fariisanay sheekaysanay waxaan tusay
inuu jiro qof communitygooda kamid a anoo kale noqon kara ma fahanti ani marka sharaf bay ahayd mana aha kii ugu horreeyay aan sameeyo xataa inaad professor noqotid markaan ableegareynaya shaqada professornimada waxyaabaha aan u baahan u malaynaya inay siiyeen xataa mataqaana strengths applicationka markaan evaluate gareey waxaa kamid ah markaan Columbus joogay community waan ka qayb galay Vision for Success project la dhahayay communityga Soomaalida ah oo la rabo in lagu tuso dadka Soomaalida dadka professionals ka noqday Soomaalida dadka dawladda u shaqeeya dadka PhD sameeyay dhakhaatiirta dadka businesska ku jira oo mataqaana college-ka aaday oo wax bartay oo professional job u kaca oo u shaqeeya in lagu inspire gareeyo Soomaalida in shaqooyin noocaas ay jiraan oo mataqaana qof markuu high school ka baxo oo college aadi karo barnaamijkaas qayb ka ahaa mentorship aan sameynayay ardayda Soomaaliyeed oo undergrad markaa sameynayay Ohio State University iyo banaankeedaba baan la kulmayay la sheekaysanay wax laga sheekeynayay graduate school sida lagu aado tipska qaabka student purpose loo qoro waxay u baahan yihiin inay sameeyaan waxa faa'iido ku jira in graduate school aado way they should care ma fahmaysaa marka waxaas oo dhan waxaan ku xusay statementigii of impact baan lahaa impactiga aan sameynay waa maxay waxaan anigu mar walba jecelahay qofba qof uu ka vulnerable yahay community ka vulnerable yahay inaan la shaqeeyo oo qayb ka ahaado la fariisto iyaga aniga marka researchkayga iyo value-gayga baa waxay u design garaysan yihiin inaan dadkayga ku dhex jiro in inspire gareeyo la shaqeeyo researchkaygana qayb ka ahay dissertationkayga dhan chapterka koowaad waa baxay xaafadaha unreserved community-ga meelaha dadka loo inkama ku nool yihiin aan tegey data collection aan ka sameeyey waa la sheekaystay waa waraystay marka aniga value ahaanba waxaan aaminsanahay qiimahayga wuxuu ka yimaadaa bulshada Soomaaliyeed weliba kuwooda ugu tabartaya ma fahmaysaa marka runtii arrintaas waxaan malaynayaa waxay ku xiran tahay haddii dhacdayna qofkaas waxaa laga yaabaa inay shakhsiyaad ku kooban laakiin aniga qof noocaasana maahi value-gaygana lama allayn garayso dadkan ka mid ahay of course waa jirtaa life choice sabarbanka adoo ku nool urbanka waa imaan kara community waa dhexgeli kartaa ifadiga oo ka hadli kara dadka waa inspire garayn kartaa waa mentor garayn kara generationkii laakiin haddaa tirada albaabkan soo xirnay dadkii ma dhexgelaya waa iska weydaysanaya waa ka duwanay that's a entirely different decision laakiin aniga ma taabacsani mana support garaynaya idiyada waa mahadsan tahay waa soo gabagabeynaynaa waxaad ii sheegtaa hadday jirto waano ama advice ama maxaa la dhiirigelin adoo yar uu siiyey oo maskaxda kusoo noqoto oo wax badan saad adduunka u aragto ama saad uqabsata ka bedeshay wax ka bedeshay ama waana ha ahaato ama erey dhiirigelin oo kugu soo noqo madaxa ha ahaato ama wax uu macalinku yiri ama waalidku yiri ama saaxiibku yiri oo xilliyaad adag kaa soo saaray ereyga haddaaya waa xusay macalinkii igu dhahay faqriga waxaa kaga cararkan qalinkaaga ereygaa mar walba waxaa ereygan soo xasuusto markay nolosha adag tahay Ethiopia markaan joogay $50 kala ku sarfeed kala jiray lacag badan ima soo geli jiray bishi duruuf adagaan kusoo koray mataqaanaa ii sheeg markaan joogay Kuuriya waxbarashada pressure badan ay saarnaa xataa maraykanka marka PhD sameynaysa waxa waaye nolosha ku nooshay nolol furug of course marka mar walba waxaan soo xasuusanayay waxaan arkayay fursad ii hortaala maalintaan dhameeyo waxbarashada ma fahmaysa meeshay tahay iyo meeshaan gaaraya iyo qiimahan yeelanayo so aniga mar walba waxaan xoogga saarayay berri waxaan noqonayo taas mar walba waxay iga soo gudbisay marka duruuftii arrintana waa very important dadka inaga Soomaalida waxay dad qooblayno nahay aniga markaan ka hadlayo normally waa ka hadlaa waxaan dhahaa poverty-ga wax Soomaalida dhib badan ku haya dadka inay recognize gareeyaan poverty-ga waxa inuu dhib yaadan u qirin waxaan maraynaysaa anaga waxaan dhahaa dad taajiriin nahay dad entrepreneurs nahay dad ugu hanti badan nahay adduunka meesha tagna successful noqona adiga ha eegin collective success individual is not wax eegay laakiin waxa eegtaa mataqaana community at individual level dad badan waxaa jira statistics marka eegtid duruufta ay adag tahay xataa maraykanka nolol adag ku nool so waa inaa eegtaa adiga dadka majority-ga ah low income neighborhoods underserved communities opportunity oo limited meel ay ka jiraan inay ku nool yihiin marka waa inaad waxyaabahaas oo dhan you keep in mind marka waxa waa adiga marba aniga su-aasha weligii ilaa maalintan ka dhimanayo aan taaka dissertationkaygana waa ahayd aniga dissertationkayga waxaan eegay waxaa la poverty-ga sidoo dadka ugu hor istaagay inay abuurta kortada teknolojiyada casriga ay gataan ama la qabsadaan marka poverty kaliya maaha financial poverty waxa waaye poverty-ga noocyo badan oo kala leeyahay capability poverty ay jirta qofku inuuna mataqana waxyaabo kale oo aan ahayn non income poverty ay noocyo kala geli karto bas ayna ahayn taasi waxay noqon kartaa tusaale inaad ku nooshay guri aan well insulated ahayn oo qabood winterka taasina waxay ku kalimaysaa inaad koronto badan isticmaashid lacagtii aad koronto ku bixinaysa ay korodho lacagtaadii aad disposable income-kaaga ay culays saarto oo lacagtii xataa kugu yaraato marka waxaa jira waa vicious cycle waxaa jira faqriga abuuro isku soo noqnoqda lacag badan oo gaariga gaaska kaaga baxda
mataqaana safar dheer haddaad gashay meesha u safraysay korontadii oo ay kugu adkaatay lacagtii aad bixinaysay gurigii oo aad u qabo koronto badan ay isticmaalaysay ma fahamsa waxyaabahaas waa waxa la non income poverty waxyaabahaas oo dhan waxyaaba noocaasaan eegay marka weligiina waa su-aalaan taagal garaynayo waxa ugu muhiimsan laga bixi kara waxbarasho masha allah waxaad ii sheegtaa ma jiraa qof ama asxaab ha ahaado ama waalid ha ahaado ama qof aadan aqoonin xataa aad ku dhiirigeliya ha ahaado ka qaatay rool weyn inaad maxaa la dhihi jiray maanta meeshaad gaartay aad imaadid dad badanaa qayb ka qaatay ma dhihi karo qof xataa horta community qayb ka qaatay wasaaradda qarbaan ka imaaday communitygan ka imaaday hooyada iyo aabahay ugu horeeyaan macallimiinteedii iskoolka hoose dhexe macallimiinteedii dugsiga sare dowladda Puntland صح dowladda Soomaaliyeed markii xataa ay fududeysay markaan aaday South Korea ma fahmaysaa waxa waaye intaba waxa way dadkaas oo ay garanayaan magacooda qof walba ma list garan kara laakiin waxaan ku sheegayaa successkayga waxa waaye wuxuu ka yimaaday collective effort dad badan oo isu gacmaha isu geeyay oo ay soo saaray markaas aniga village aan ka imaaday village-ka dadkii joogay iyo dadkii ilaa heer dowladda Soomaaliyeed gaarsiisnaa baa qayb ka qaatay markii aadan buug akhrinaynin ama aadan shaqaynaynin ama aadan soo shaqaynaynin maxaa fufan u samaysaa waa su'aal fiican gitaarka waa ciyaaraa haye gitaarka Mareykanka mise kabanka Soomaalida Mareykanka waxaan kaloo sameeyay baaskiiladan kaxeeyaa laakiin gitaarka waxaan u ciyaaraa waxa ultimate waxaan ku talagalay heesaha Soomaaliga inaan ku maajgarayo laakiin hadda waxaan ku bartaa aad ardayga nahay soo hadda waxbarashadiisa baan ku jiraa soo markaan waqti haysto isaga ku ciyaaraa wuxuu u fiican yahay waxyaalaha u barto waxaa kamid ah ma aha kaliya farfarta maskaxda u fiican yahay neural connections uu sameynaya because of waxa xarfo xarfahaas la rabo inay maajgarayaan isku xiraysaa soo isagaan isticmaala hadda isagaan bartaa baaskiiladana waa jeclay waa kaxeeyaa waxaan jeclay inaan to take a walk inaan baarkiyada aado lugeeyo markaas waa markaan buug akhrinayaa mataqaanaa iyo inaan baxo oo dadka la sheekaysto sometimes xaafadda inaan mataqaanaa talk sameeyo hi iska dhaho haddaan Soomaaliya kala joogi lahaa waxay ahaanay dadka inaan la sheekaysto waayeelka odayaasha hooyooyinka dhinaca fariisto la sheekaysto marka taas waxyaabaha hab u sameeyay buug aad maxaa la jiray akhrisid aad ka heshay dadka kula talmay inay akhriyaan buuggaan akhriyay oo runtii dadka kula talay waxaa la dhahaa Poverty by America waxaa qoray Matthew Desmond waxa waaye a professor of sociology at Princeton University ninkaas baa qoray buugga wuxuu ka hadlayaa buugga magaciisa Poverty by America Poverty by America Poverty by America Poverty by America صح Poverty by America wadaha buugga waxa qoray professor sociology ka bartay oo jaamacadda Princeton jooga buuggaas wuxuu ra'yi ka siinayaa in America ay tahay wadan rich ah with many poor people ra'yi fiican ay keenaysaa marka waxayna la relate garaysaa anaga Soomaaliya wadankii iyo kuwa halkan joogaba markaas waxay ka siinaysaa picture waxay poverty-gaas marka aniga buuggaasaan isleeyahay buug fiican waaye weekend read noqon karaa masha Allah Abdurrashid aad iyo aad baad mahadsantahay thank you very much thank you